السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأنيقي ومرلبات إذن صور لابتي هل عدسي إنت أهلا سوى قد قلن برنامج كيغا هدي أدكو عصبتها channel كان سبسكرايب لايك شير نوصار هدي أدن وجوكتين welcome قعم فربان قوسو دوينينا أصحابي هيتوان كلا راقنين مدوب بدن بان كلا مقنين maxaad dabteen maxaad jeceshihiin sheekooyinkii jacayladii qisooyinkii maxaad rabtaan oon maarad inaad idin sheego balse maanta aniga maxaan rabay inaan idinla wadaago qiso ay gabar ila soo wadaagtay qisadaas oo ah dhibaatooyinka qurbaha ka jira wadamadan aynu joogno reer galbeedka dhibaatooyinka lagu qabo rag iyo dumarka isku qabaan baan rabaa inaan maanta qiso ka mid ah oo gabar maxay ahayd subscriber-kayga ay la soo wadaagtay baan rabaa inaan idinla wadaago gabadhaas waxay gabadh aad u da'yar bay ahayd iyadoo adigu wadanka waxay timid waa Norway qisada meeshay ka dhacday waxay timid iyadoo 18 jir ah oo uur leh bay wadanka soo gashay markay wadanka soo gashay oo isu dhiibtay maxay ahayd sharci baa la siiyey waa la qaabilay ilmaha aabihiisa ah waa la dhahay way sheegtay maadaama ay aad u dhalinyareen si degdega ninka loogu keenay bas qisada markii ninka loo keenay gabadha u yimaadeen gabar buu ilaahay siiyey way dhashay waa isla noolaayeen famil isku faraxsanay ahaayeen nin aad familkiisa iyo xaaskiisa ma aragtay u jecel oo dadka dariska ah maasha Allah waa nin wanaagsan oo kaal iska arag la yiraahdo ahaa ninkii sheekada markii halkaa maraysa gabadha ay da'da labaad u dhashay buu ninka wuxuu bilaabay in qiyaano inuu u maleeyo gabadha yarta ahayd bas wuxuu sameeyay wax kasta oo wadanka aduuyna oo nin aad maaragtay u galgali ah nin muraad leh inuu yahay waa la dareemi karaa laakiin dadku waxay u arkeen nin furfuran oo maaragtay xoog furan oo raba inuu maaragtay xaaskiisa garab istaago balse muhiimadiisu waxay ahayd in uu gabadhaas ka tago oo uu kaligiis noolaado oo nolol kala samaysto ilmahaas iyo maxay reerkaas dhanba ninkaan uma muuqan waxa u muuqatay lacag bas lacag uu ka fikirayo warkii aan idinku daalinina gabadhii ninka wuxuu bilaabay inuu hadal badan isku soo celceliyaan hablo balka maxaa sameynaa maanta iga daa qaylada anigu meeshan qaylo uma imaanin anigu 20 jir baanahay maadaa i dhalay war maxaa dhacay maxaa qaldan waaba kaa guuraya isku soo gooy markii dambe waaba kaa guuraya waa da'di labaad oo waliba ilma xanuunsan ay dhashay oo keer zaa'id u baahan sheekadii aad ku daalan ninkii banaanka ku dhacay gabadha waa gabar yar meesha waa Norway waa taqaanaan xaaladeeda ilmaha sida loo boobo waa ogtihiin gabadhi ooyinteeda ma cadeyn mana midoobeyn adigu wixii qaraabadii familkii iyo yimaadeen waxaan dhahay warniyo maxay tahay meeshaan ma xarta ilmaha in laga qaato gabadhan waa gabar yar maxay ahayd adiga hadda u yimid odaa ninkeedii ah maxay tahay waxa ku dhaqmaysa waryaada joogsaduu yiri aniga waxaa filimadaas ay imaan istiqaal baan leeyahay reer baan leeyahay famil baan kasoo tagay gabadhaana xujadeeda ma rabo anigu waana iga furan tahay bartii ku dalaaqay marka gabdhow nimanka aad Afrika keensanaysaan ka fiirsada meesha aad joogtaan nin kula jooga guurso qisadaas waa qiso dhab oo dhacday oo goob joogeeda la soo wadaagay aniga marka maanta waxaan rabaa barnaamijkeena inaan qisadan yarta ah idinku la wadaago remember sheekooyinkeena jacaylka iyo ma aragtay wixii iyo dhacdooyinkina waa inoo soo socdaan maalinta idin macnaato waxaan idinkaga tegayaa maca salaama